si aan igu dhiirigelisid inaan muuqaaladan soo sameeyo adna ugu faa'iidid. intaas kadib PayPal account qofkaan aqoonin PayPal waa wax kale ma ahan, waa ciwaan ama account qaab online ahaan aad u samaysanaysid oo aad hadhow lacag lagu soo diri karo ama aad ugala soo bixi kartid tusaale ahaan applicationada iyo website-yada aan wadanka Soomaaliya oo kale waxba looga sameyn karin. Tusaale YouTube oo kale Soomaaliya lacag loogama sameyn karo, wadamo kale ku xirnaysaa, laakiin hadhow PayPal kaaga aad lacag ugala soo bixi kartaa. marka sidaas waa ugu horreyn waxaad sameynaysaa qaybta searching-ka oo Chrome kaaga ama Google kaaga aad wax ku qoranaysaa PayPal. okay, search dheh intaana ku soo bixayso kadib waxaad taabanaysaa midkan ay ku qoran tahay create PayPal account. labada xabo ku soo saari doonaa, labada xabo mid ka dooro. mid kale waxa waaye yani haddii aad rabtid inaad personal ahaan adiga shakhsi ahaan aad u samaysatid, midka labaadna waxa waaye business ganacsigaaga ahaan inaad u samaysid. hadda waxaan dooranaynaa anaga raba inaan samaysto oo kale personal. kadib qaybtan ku soo saari doonaa, qaybtan waxa waaye yani cadday inaad robot ahayn. tigta taabo tigsaar kadib wuxuu ku dhihi doonaa numberkaaga geli. hadda qaybtan kore sida u jeedno waxaa noo saaran Canada. waa iska bedeleynaa Soomaaliya saaranaynaa. Africa ku soo saari doonaa, Africa intaan wadama looga ogol yahay. Soomaaliya kale waa dooranaynaa. okay, kadib koodka Soomaaliya asaa ku gelin doono qaybta hore adina markaa gisho 682. okay, markaa markaas u gelisid nagaysta taabo kadib wuxuu ku soo diri doonaa kood, numberkii aad gelisay ayaa kood ku soo diri doonaa oo cadeen u ah yani numberkaas aad isticmaashay inuu kaaga yahay. يعني qof kale numberkiisa daa isticmaashado kale koodkaana cadeynaa inaadan numberkaas adiga haysan oodan lahayn. marka koodkaas numberkaaga ayuu kusoo diri doonaa. koodka markuu kugu soo dhaco meeshan ayaad gelinaysaa. okay, ana hadda passwordka wuu ii soo diray number kale oo ku jira eber 58 31. adii lacagta kusoo diri waayo waxaad taabanaysaa bis meeshan ku qoran tahay send code again, mar labaad ii soo dir dheh kadib insha Allah waa heli doontaa. okay, 31. okay, hadda asaas geliye kadib. okay, marka meeshan oo ku keeno waa intaana qayb waa buuxinaysaa. meeshan kore email-ka aad rabtid inaad ku samaysatid ayaad gelinaysaa. okay, marka meesha email-ka gelisid inta waxaad gelinaysaa magacaaga koowaad first name-ka. okay, hadda waxaan iska gelinaynaa okay mustaqbal leh intana last name magaca labaad mustaqbal technology. okay, meeshan sida ujeedid password sameyso waaye, passwordka aad sameyso. hadda password ayaan gelinaya, meeshan kor passwordka gelinaysaa, meesha ku xigtana sidoo kale isla passwordkii ayaad mar labaad ku celinaysaa. marka waa muhiim passwordada isku day inaad ka dhigtid password adag oo tusaale ahaan yani qoraal iyo tiro iyo macnaha dhibic iyo waxaas camal inaad isku dartid ama calaamada at oo kale iyo kuwaas inaad ku dartid adiga inaad passwordka adkeysid wax aan la qiyaasi karin aad ka dhigtid. maxaa yeelay muhiim ayuu ku yahay PayPal account-kaaga. waxaa laga yaabaa lacag kugu jirto in laga baxsado. isku day marka passwordkaaga mid aan la qiyaasi karin oo adag inaad ka dhigtid insha Allah. okay, ana hadda passwordka gelinaa. okay, laba password geliye sida ujeedina calaamad tigtiga ay saarmatay oo yani in password yani la qaadan karo oo macquul yahay. kadib waxaad taabanaysaa calaamada ku qoran tahay next. markaa next taabatid kadib meeshan ayaad ku keeni doonaa. meesha u koreyso waa nationality dhalashadaada waaye Soomaaliya ku tahay. okay, meeshan labaad waa address line-ka. address line-ka badanaa Soomaali ma isticmaasho laakiin dhib ma lahan. okay, addresska waxaa rabtid ka dhig yani badanaa Soomaaliya wax yani u kala qeexan ma jirto. marka aad mid la ka dhigto tusaale kana ay soo bax kaxda iska ka dhigaa. address 2gaasna wax la ka dhig Mogadisho iska dheh. okay, okay, laba meel waxaa waaye townka Muqdisho, stage-kana waa region, gobolkana waa Banaadir. postal code-ka okay, postal code badanaa ma isticmaalno eber iska dheh. okay, date of birth yani sanadka dhalatay waxaa ugu horeysiinaysaa maalinta tusaale bisha 12 camal 23 camal yani maalinta dhalatay 12 waaye. tanna waa bishii shanaad oo kale iska dheh. intana sanadkii aad dhalatay ka dhig. yani wax saxan ka dhigtid waajib ma ahan laakiin waajib naqeed tusaale ahaan hadhow haddii mastercard oo kale waxaas aad ku xiriirsid yani mastercardka wax kugu qoran wixii inta kugu qoran waa inay isla ahaadaan magaca haddii ahaa lahayd iyo haddii ahaa lahayd taariikhda iyo waxaas dhan waa inay isku mid ahaadaan. labada meel la tig saaro. haddii hadhow waxaa laga yaabaa in liska diido ma ku xiri karta mastercard lagu dhaho maxaa yeelay isma lahan lagu dhaha laga yaabaa. marka iska ilaali waxa isku mid ka dhig. marka inta samaysid kadib waxaad taabanaysaa meeshay ku qoran tahay agreed and create account. okay, markaa taabatid kadib meeshaan ku keeni doonaa maxaad rabtaa inaad samaysid tusaale ahaan mid koowaad oo ah
shop inaa hadda dukaameys ama sameysid mid kalaad inaa lacag ku dirtid mid ka yarid labadan waa taaban kartaa ama waxaa taabanaysa meeshan hoose ay ku qoran tahay not sure add car to use later kadib waxaa kugu qasbi doonaa inaad gelisid yacni kaarkaaga meeshaan kor waxaa gelinaysaa numberka kaarka yacni master kaarkaaga numberkiisa meeshaan hoose kaarka magaciisa master kaar miya visa miya maxaa waaye meeshaan hoose waqtigoo dhacayo security codekaaga intan waa adresskaaga waayo intaas kadib linki kaar ayaa dhehaysaa kaarka saas oo kugu xirmaa haddaad yar inaan kaar ku xirtidna dhib ma lahan markaa intaan samaystid oo kale kadib ka bax akoonkaaga wuu kuu samaysan yahay payable qor serji dheh kadib waxaa dhahdaa login yacni kaar haddaad yar inaan ku xirin oo mar kale aad ku xirtay aad rabtid login dheh kadib saa ujeedid hadda si toos waa kayo yaankii wuu xiran yahay hadda kugu xirnaa waa dhib ma lahan baaswirka wixii waa taqaanaa kusoo gal kadib meeshaan ku keeni doonaa muuqaalkan maalintaas ay ku egyahay haddii jiraan su-aalaha qabtid qaybta comment igu reeb sidoo kale hayloobi inaad subscribe saartid si aana igu dhiirigelisid inaan muuqaalo cusub soo sameeyo like saar si asxaab badan u gaaro haddaad share garey kartidna waa kasii fiican tahay intaa muuqaalka isiga gaarna waxaad sii daawan kartaa muuqaalahan shashada kaaga muuqda